cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969 markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991 markii maamulkaas xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay waxaana uu qabaa inaan mas'uuliyadda burburka Soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre maya waxaas ma jira waxaas ma jira hadda waa arkaysaa haddii oo dad soo galo wax u maartay noqonaya yihiin siyaad barre hadda waa tigay intaasna maartay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku hesheen oo ay fulaan lama arkin marka waxa weeye siyaad barre iska hadalbay dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC wuxuu ahay nin waqti dhib jiray dalka qabtay militar ahay militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay waatana la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo markii dambana hadee waa nin marka uu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay aadaanba oo yani nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto laakiin markii uu dego asi yani uu nagaado dawladdiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qabo ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80-meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM imika haddaan ku soo qaado Somaliland Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo carruur wax walba leh oo kolbadaadku Hargeysa soo saaro waad ogay inuu jasiiro waati inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira waa halkay ka bilaabantay baa halka ahayd sababtana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro kolka waxa weeyaan astaantaasaa meel walba u taalo raadkaasu ka tegay in siyaad barre kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaytaan ilaahay ummad u soo diray buu ahaa kolka astaantiisa iyo xumaantiisa waxa la waxa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isaga muxuu waa sunnihii uu dhigay weey waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusooda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan kuma laha keliyahay waxa weeye aas-aaskii dulistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay habxumada iyo dhaqanxumada iyo qabiilka iyo kala tagga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay oo dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra hadii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo maaha eedda keligii ma leh waa lala wadaaga dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaa saatan oran maxaa yeele wuxuu gaadhsiiye meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin
inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashan kareen laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsanno garan ahaan ilaa haddeer ma aynan baran wada hadalka ma naqaan nin walba anoo reer hebel ka bilaabahaya waryaa adigu reer hebel baa taa la leeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo warbadmiintiina la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyaddiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba wallahi anu waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayo soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jabjabno oo la kufkufno oo qaladno oo wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinacaas positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inante xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah